kusoo dhawow channelka boqol durraan fadlan ka ilaawi like subscribe taasaan isku soo gudbino macluumaad fara badan 10 calaamadood oo lagu ogaanayo qofka beenawaaska sidee lagu ogaan karaa qofka beenta sheegaya arrimahan waa arrimo lagu ogaado beenta qofka sheegaya haddaadan baran cilmi nafsiga sida dadku u dhaqmaan laakiin waxaan lagu garan karaa imtixaan lagu qofka lagu sameeyay dadka markay qaar waxay u dhasheen iyagoo yaqaan arrimaha sida qofku u gartaan inta beesha sheegaya laakiin arrimo daraasado lagu sameeyay oo muddo badan laga soo shaqeeyay oo jaamacado badan oo heer caalami ay soo saareen ayaan idin soo gudbinaynaa 10 calaamadood ee ugu waaweyn ee qofka lagu garto beenta sheegaya waa kashifaya qofka beenta sheegaya 10 calaamadood ee kashifaya qofka calaamada koowaad kusoo dhawaada muraaqabadu waxa weeye waxay jaamacad sheegtay daraasad soo saartay muraaqabadu waxa weeye qofka beenta sheegaya calaamadaas waxa weeye dhaqankiisa waxay noqonaysaa uu hadalkiisa markuu ku hadlay aan ku raaxaysan ku sheegayo uu radinayo hadalka jawaabihiisa oo aan raaxo lahayn ma garanayo la adri ma xasuusto hadalladaas daraasadaas waxay sheegtay in calaamada ugu horeysa qofka lagu garanayo beenawaaska inuu been sheegayo calaamada labaad waa tanaaqud qofka xali beenawaaska ma awoodo inuu in badan beentii qariyo markaas hadeed culimadu waxay sheegeen cilmi nafsiga baratay tanaaqudku waxay ku tusinaysaa qofkaas inuu been sheegayo waa ishaare weyn marka asluubkaasna waa asluub jira waxaa isticmaala booliska isticmaala si ay xaqiijiyaan qofka ay soo qabteen waxay wareystaan marar badan bay dhahan ku celceli hadalkii qisadiisii arrinkiisii ka bacdi waxa halkaa laga soo saara tanaaqudkuna waxa weeye arrinta ugu weyn ayana beenta lagu ogaado tan saddexaad waa tacaabiir wajiga waxyaalaha laga garan karo wajiga qofka markuu been sheegayo calaamad baa jirta ku tusinaysa inuu been sheegayo oo ay adag tahay in la xaqiijiyo maadaama dadka qaar beenta sheegaya ay yaqaanaan sida tansiilka baaricin ku yihiin laakiin calaamadaasu sida culimadu sheegeen waxa weeye daraasad ay sheegtay waxaa wajiga ku yaal xubno marka qofku uu sheegayo oo qofka siiya sacaado marka qofka beenta sheegaya cadalaadkaasu iyagu waxay noqonayaan tacbiir waa calaamadaha lagu cabiro waxaas marka xawl inta agteeda bay calaamadahaas ku yaalaan marka qofka beenta sheegaya iyagu cadalaadkaasu ma shaqeynayaan wajigiisu wuxuu noqonayaa mid yacni wuxuu noqonayaa aan awoodin inuu kula hadlo ma awoodaan runtii inay ku soo celiyay iyagu xagga kale u gadinaya ama xagga sheekada xagga kale u rogaya marka qofka hadda ka darabtin ku soo celiyay wax si gadisan uga warraba arrintii ma awoodo qofkii beenta ku sheegayay marka daraasad waxay sheegtay qofka beenta sheegaya inuu ku adag tahay inuu arrintii ku soo celiyo si kale uga warramo maadaama ay waxaan waxay tiraaqeen sidaas ka duwan hadda tira ugu soo celi ma awoodo wacigiisa iyo daakriis ma awoodo inuu si ka duwan arrintu ka hadlay uga hadlo maadaama ay adag tahay arrintaas dadka badankooda beenta xaqiiqada xag kale waxa doon xaqiiqa ahayn ay xag kale u roog karin saa daraadeed hadda ku tiraahdo arrintii ku soo celi kuma soo celin karo waxa sidaas kale la yiri dadka beenta sheegaya ma awoodaan cadamu tawaasul basar inay aragoodu fadhiyo arkaas waxaa ishaaraysaa qofka beenta sheego indhihiisu marba beel ayay eegaya waxay ku tuunaysaa qofkaasu marba beel buu eegaya inuu qofkaasu uu been sheegayo oo aragiisu waxaad moodaa inuu mar indhahaas ku qabanayo dadka baadhay cilmi baadhista ku sameeyey waxay ogaadeen arrinkaas inuu yahay arrin muhiima oo in lagu ogaado qofka beenta sheegaya haddaad araggiisa aad toos u eegtid waxaa ku soo baxaysa inuu been kuu sheegayo arrinta lixaad waxa weeye way ka caajisayaan as'ilatul mufaaja'a su'aalaha kadiska hadda ku su'aalo kadis aad weydiisay hadda marka hore usoo sheegnay oo kale waxyaalaha adeegsamaan waxaa kamid oo dadka beenta sheegaya maadaama xididadoodu ay beenta isku taxaluujinayaan waxaan xaqiiqa ahayn sheegaan marka su'aal kadis haddaad kusoo jawaabtid lagama yaabo inuu markiiba ka jawaabo si fudud uga jawaabo dadka beenta sheegaya oo qisooyinka beenta ah jira ee khiyaaliga mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo qorsheeyaan yani waxyaalaha risay u radin lahaayeen taasna hore looga soo hadalnay su-aal cashwaaya haddaa weydiisa waxaa laga yaabaa inuu qofkaasu waxba ka jawaabin waana arrinta lagu garan karo qofkaas inuu been sheegayo waxaa kaloo adeegsadaan boolisku is'aluuna waxay xidhan yihiin waxyaalahaas waxay cuneen waxyaalahaas kale booliska weydiiya qofka marka waxay ku ogaadaan inuu been sheegayo ma sheegi karo waxyaaluhu soo cunay wuxuu xidhan yahay tacaabiiru daqiiqiya waxa weeye taas waa ishaaro ku tusinaysa oo adag iyana in la mulaaxadeeyo qofka beenta sheegaya oo ay soo saareen dadka yani mashaacirta cabira ama dadka cilmi nafsiga bartay arrintaasna waxa weeye waa arrin iyaduna waxa weeye ka caadil macamdu waxa weeye tacaabir aqsa qofka lagu cabirayo yani waxyaaluhu sheegayay marka waxyaalaha la cabirayo waxaa kamid ah qofku waxyaaluhu ka hadlayo yani shucuurtiisa la cabiraya wuu isku qoslaya
marka ihtimaamku siimayo qofka dhaqdhaqaaqiisa iska badanaya qofkii ihtimaamkiisa ayaa iska badanaya uu wareersan yahay wuxuu noqonayaa qof mar haddii la mulaaxadeeyo qof wareersan oo degdegaya mar walba degdegaya markuu warramayo arrintiisteeda waxa weeye tarmiish taasuna waa dariiqad fudud oo culimada nafsiga ay sheegaan وقفك قناعة المشاعر وحوي أرنتا لو قرنايو يعني قفك سبنا أرنتاس قصة دلوش علم بارسيدا وأرن الله دي الملاحظة ولا عبره هذا الذي سأمر القراء أو تصدحات وحوي مشاعر السلوكية وحيالها عن ونكسنين قفك كسو مقنايا تاسنو وحوي وأرن قرنايو وقعمها ودرقاتيو بعض الأحيان قريبة وكو سلامو وحيالها صدقنا وحلو قرن كرا قفك إنه بين شيء يوجيسا ومودد سو هالين قف عن دقنين وعن قصلين لغة جسدهم يلغة تشيركودا تاسونا مربا لغاقة تشيركودا لغا قرانيا مركي هاليان إنو بين شيغيين كلا لغو قرانيا مرو حشونايو ومقاركو بينكو حالو تمنادو حاوية اللعب محامي الشياطينية وحاوية تاسو منطقة الخبراء كخبرada ayaa garta isxaab sucab waxa weeye dariiqada lagu garto beenta taasina waxa weeye waa arrin qofku qadaar afcaaliyo yani ciyaarta waxyaalaha oo lagu soo saaro culimadu ay yaqaanaan ficliyan khaa'if min waa arrin laga cabsado arrintaas waxa weeye maxaami shaydaanka iyo waxyaalahaas sida waxyaalahaas oo kale waxyaalo lagu garto weeye oo qofka laga cabsiyo marka lagu ogaado qofka cabsi baa la gelinayaa markaasaa daraadeed ayaa lagu ogaanayaa waxaa la weydiinaya waxyaaluhu sameeyey hadaladiisii baa lasu barbar dhigaya ay jamiil tubdu xaqiiqa waxyaalihii xumaa ayuu wuxuu u arkayaa waxyaalo wanaagsanayn markaas arrimahaas ayaa lagu gartaa inahaas kusoo koobanaa waa mahadsantihiin fadlan like-ta ka ilaawina saan inagu soo gudbinaa casharo kale oo faahfaahsan waa mahadsantihiin